الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. soo dhawaada bulshooyinka Soomaaliyeed inta halkan igaga xidhan Facebooka iyo qolyaha kale iyaguna YouTube-yada iga daawada ama channelkayga YouTube-ka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ما شاء الله عاوجي ودقيقة هي ما فيها ما شاء الله أرتا waxaan halkan tacsiib uga gudbinayaa dadka rayidka ahaa ee masaakiinta ahaa ee waxba galabsan ee falkii foosho xuma ee argagixisada ahaa ee waxashnimada ahaa lagu laayay meesha la hada gaalkaayo waan ambaareynaya ma sha Allah waan salaamaya walaal dhamaantiinba. horta waxaan Soomaali rabaa inaan weydiiyo argagixiso iyo argagixiso arrinkan argagixisada ee al-shabaab meel uu inagaga yimid iyo meel uu dabada ku haysto iyo dhaqankeen iyo diinteen inaanu halku ka soo galayo idinkaan weydiinaya qolyaha oranaya al-shabaab baa nooca iyo arrimo noocaas. tan ninkan wadaadkaana waa dul istaagi doona insha Allah taala. ninkan isagana maanta isagiyo ay ku laayeen ubadkiisa meesha diintu walaalayaal waan salaamaya guuliyo gobonimo شير قريب بالله عليكم برنامج قناة شير قريب ما شاء الله. ده أنت عافمات كابتن أنا مثل معلم كذا كمان ما راح شير قريب وأنت أصلاً عنا سلام كرنا أبا صومالي وحق مشاكل يقدرون حنود غبيارد يفهم حتى الدين تي دجال باك كصعدة دلكو دي دجال باك صعدة مو تشوف حسكو صوبيجي حلا يسوون بان در إلهي ما برت على ورد كيبا من كون سكدين يا سكدو عيسى تبان سلاي أي هندرون عن حسوس وده عددنا معلم بكرر صوت رنيه الدين الإسلام كان هرون لقاني بيجي بدنا عكلك تانم يعني حتى آياته تدكيس كسودو آي قرمي مشوخ ديو كرن معلمين سنو آياته مدينيو ما كلوا حرين شري إني نوع معنيان وآياته واحتسموا بحبل الله جميعا تدقوا ورا واحد دي حجال وأقوي صورة قرمي دكان ولم يدرسن وما ده الصومالي ما له حكورنا الاتحاد بان بلا يلا تكلمين ما له كلام حكورنا الأخوان المسلمين بان ما له كلام حكورنا الإسلام بان ما هو حزب الإسلام مالين كلا واحد كورني الشباب بان مالين دم الشديد يجينا كده بيجيبوا آخر ودقي أنا وحى إذا بيجيبوا جدوا وانقارن رنت أنا في عنامات مدة الصومالية وده كان القرآن كبري المعلم إبراهيم يا شيخ يقال وكبر التوجيه كقرآن كيقول إبراهيم قال لي بس اللورنش واي وحى نقدين كان عصديان مدور كورني سومال لنسير هات مثل كورني يقول لنسير هات هذا كنت ورمت الصومالي وراء سمت يوحي كهالينا الكنيسي إيجا مالين بشار دين صور حدانية كيشرة مستشام عسلات كوجود شربة الشباب نقاين وأنا إنترس والله حتى حكومة دي كل حشرة ربما نيجي جماعة الصومالي أنا وكواسن حالة تايستي أنا وكهالله يا حالة الله المستعان وحن كهالي مختار روب ورب المشرح بهالنقضاء وتلهه جامية مشروع عياوتي من لويدي مشروع أنا من نوعدي إلا مشروع أنا دقن كيكون مجرم دين تيجي كم مجرم ده نماذج الصومالي كم مجرم صومالي ولي أنا هو إسلام مجرم بريمجيدا مين دلتشرن تمر كمين ندلتشرن عيال كمين ندلتشرن الله المستعان هوين كمين ندلتشرن وما تصوم سوني يستلتشرن ولا لا محا ما خلق عشان ما دي الصومالي سالح يدي يقدر يدي هذا الريال مركان حتى مساج قرآن كدين شران يريرين كتاب وحي نو ساري شرين ماذا حلوه مركي سلا نقولها روب دونت كده within one day gudaheed baa roob ku dii jiray waayo qalbigooda xanaa bariisay waxa noo sameyn jireen intay alla bari way sameeyaan ay waxay noogu soo ridi jireen alla foosto gobolooyin horada dhaqankii baa lagala dagaalamay oo dhulkii baa lagala dagaalamay oo diintii baa lagala dagaalamay foosto gobolooyin baa noogu kuwaanoo dadka wuxuu macay inflation iyaga sameeya sixir bararka iyaga sameeya dadka iyaga dawooyinka dhacday u keena iyaga raashinka u keena iyaga ganacsiga la wareegay malcaamadii quraankii lacag bay ka dhigeen wadaadadii hore wax yar bay iska qaadan jireen alxamdulillah ninka wadaadka waxa la jiro ninkaas waa nin wadaad oo iska miskiin ummadda Soomaaliyeed taasaan ka dagaalamaya dagaalkaygu la uu soconaya inta igu raacsanay farta taaga barnaamijkan ay shar gareeyay diinta xitaa waana laga soo galay wadaniin maaha dalka ma jecla qaar Sacuudi oo shaqeeya qaar Qatar bay oo shaqeeya qaar kale meel kale oo shaqeeya iyagu baa danaysta waragii hore Soomaaliya aynu garanaynay SST wallahi SST ka daran SST iyo dawladda Maxamed Saab Barre kacaanka ahayd iyo wax la garan karaya bay isku heersan jireen ma soo sheegi karaysaa Maxamed Saab Barre kan tuuleeyo meel taalay wax noocaas deemay jirto Cabdilaahi Ismaa garanaysaan ma jirto
ninkii la odhan jiray caydiid miyaa garanaysaan ma jirto axmed sinaayaha beri dhowto xirsi oo wadaada baa ka faa'iidaystay oo isna jabhadeesna maha wallaahi burco meel yar oo ku leeyahay halkaa marka burco caways caynaba iyo caynaba loo baxaya buu meel gidaar yar ba la yidhaha ayuu ku leeyahay waa tuug macalaa xirsi baa tuug ahaa oo dhammaantood waxay kugu soo gabanayaan intay gar kuu xirtaan ay dumarkiina way waa horta dumarow idinka laftigiinu waa diima badateen gabadh kastaa waxay ku odhanaysaa haddaad ku tahda imka mid laha sawdi anigoo cabsanaan jitalmaan xoogaa maasha allah gabadheeda ilaahay daayo hayo nin gabadh qabo oo nin oo afar bay idinka guursadaan horta mea waalantiin marna waxay odhanaysaan waxaanu necabnahay dumarow idinka laftigiinu rawaad baa wataan ninka naagaha badan oo wadaadadayaa ku yidhi afar guursada saddex guursada waa khaayimin idinka laftigooda wayna khiyaameen ta waxaan u soo noqonayaa al-shabaab iyagun baan noqonaya wallaahi qaar xukuumadda ku jira laftigeeda oo gararka goostay imika haddii qof midsigaa rashto halkaa daacadoos war gaaladaan la joogtay inayd ku dhima kanistaa waa lagu layn karaa laguma layn kara de waxay odhanayaan dadkiiba ideology bay ku shureen diintiiba gebigeeda waxaa kale ka istaagay misay ku odhanayaan waa waxay ku danaysanayaan mowt kani waa tuug waa khaayo surweelkunbaad gaabsanaysa garhkana waad la baxaysa diinna shaqo kuma laha ta waxaan dul istaagayaa allahu mustacaan walow anigu aan halkaaba kasoo qorayay xeel dheerayaasha diinta islaamka ku takhasusay ee daacadda ee runta ee wixiina lagu soo dhalay ee aabbahay ahaa ee awowgay u ahaa ee allahu mustacaan sayidkii xitaa iyagoo sayidkii hadal haya maaragtay sayidka wallaahi wadani buu ahaa xalaala aakhirana waa ugu tegi doontaan dhammaantiin waxay kodhanayaan oday waalan buu ahaa oo dalka war iyagu dalkaba ma lahaba al-shabaab waxay u dagaalamayaan oo intaa u dagaalamayaan waa wax burburin kuwa kalena waa la mid waa isku wada fikrad waa isku wada ideology isku mabdaa qura soomaalinimo waba lagu soo habaaray soomaalinimo ma yaqaanaan dal ma yaqaanaan wanaag ma yaqaanaan kala go' soomaaliyeed kama hadlaan wax kaloo wanaagsan kama hadlaan walaal waxaa yara dul istaagaya ninkaa isagana anugu horta xalayta brogramkayga nu iska soconayaba mooji wax isku soo beegay anigoo nimankaasun ka cadhaysan run baan idin sheegaya mukhtaar robow waa argagixiso waa maleeshiyo waa burcadbadeed haddaad dooranaysaana idinka idin taala kuwiina qabyaalada ku taageeraya waayo qabyaaladu xoog badanta maanta waxaan oga daanaa tollaay horta nin waxaa isweydiiyaa mararka qaar war horta ninkan reerkiisa dabada geliyaa miyaanu xishoonayn talada iminka haddii tusaale ahaan musabixi baaba madaxweyne musabixi baaba hargeysa madaxweyne ka haddii reer samatar oo dhan iyo oleeyaan wallaahi waa fariidkeegi maxay micnay samaynaysaa reer samatar waa ama isaaq oo idil meegaa iba deeqiba karaya waana soomaalida ilaahay koona kasta ilaa koona kasta aad ka hadli karaysa horta qabyaaladaystayaashaa maanta la jeceliy oo ninku markuu idhahdo reerkaygaan difaaci waan arkaa koyaroo qabyaaladii waxaa ka shaqeeya hayla soo galina oo qabyaaladii waxaa saacirkaasaa la marinaya oo reerkayga buu hadal haya bale wallaahi qabyaaladu waa taakhiradii intaraysa qorayaada faraha badan ka qoray ninkan walaalayaal isaga tiisa waxaan u daynaya sidaa uu maantaba b b c da ka sheegayay waa dhegaysanaysaa bejkaygana way ku jirtaa b b c dana waa la wada socotaa hebel jamcaale ninka ilaaha waa kii wareysanayay sheekh axmed dalmar ninka la yidhahdo ee inta badan ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo sidoo kale arrimaha diinta iyo wax ka faalooda horta kow waxaan la qabaa oo fikirka saxda odhanaya nebi maxamed khayru khalqullah in wax laga sheegaa waa khalad in laga been abuurtaana waa khalad taa la iskuma diidana laakiinse qofka ka been abuurtaa axkaam baa u taala axkaam ayaa la marinaya waa la weydiinaya waa diintu waa nasteex weliba haddii marka la weydiiyo waa in weliba markhaatiya ay ku furaan oo markhaati yidhaahdaan waxaa iyo waxaa iyo waxaa oo caddaana la helaa diinta xaggeebay kaga qoranta okay diinta meel ay kaga qoran tahay war ninkan aad og tahay ee gaalka ah xitaa ee makaniisadiisa jooga inaad makaniisadiisa ugu tagtid oo aad ku dishid waa xaaraan maqdaca diinteenu way ka soo horjeedaa dhaqankuna ka soo horjeedaa okay taas waxa weeyaan ta aan wadaadkaa ninkaa halkaa anigu dee wadaadkiisa iyo wixiisa caddayna anu kuma hayo anigu xaakinimay weliba waxaa loo baahanayaa buuli marka la helo markhaatiyadii marka maraggii la helo marka intiiba la helo qaadi waa xukumaya imika tusaale ahaan dee soomaaliya dowlad way jirtaa maasha allah dowladda federaalka balse maamulkoodu weli toos federaal weeyaan goobtan waxaan ka dhacayeen dhinaca puntland baa xukunta puntland waa wax lagu heshiiyey waa wax sharciga dadkaasoo dhigteen dhinaca galmudug baa xukunta galmudug waa waxay dadkaas ku heshiiyeen waa sharci ay ku kala baxaan halkay ka soo galaan iyagu mayagaa al-shabaab ma puntland baa
magal mudugba yaa u ogolaaday xitaa inay meelay haystaan intay u qaataan waa fal waxashnima al-shabaabna waa wax dibadana looga keenay waa waxaan diinteena ku jirin horena umay jiri jirin ummadda Soomaaliyeedna waa habaaradan lagu soo habaaray qofka al-shabaab xitaa yiraahda arrinka ku taageersan waxaan qabaa inuu al-shabaab waxaana waxa ka hoskareynaya ku jiqsi ku xumee hebel baa halkan haysta hebel kala meeshana taasuna walaalayaal waa ta Soomaali in la daadagtay ee dulmiga ah wallahi nimanka culimada sheeganaya run baan idin sheegaya waxa ka fiican oo aanay weligood gaari karin weligood maxaa been isugu culimadeennii hore adeer dalal fara badan oo Afrika markii colonizationkii u yimaadeen ama raggii wax gumaysan jiray sida Mozambique oo kale muslim bay ahaan jireen Mozambique oo kale markii hore yaa lama badbaadin Portugiiska uu tagay baa gebigooda wuxuu ka dhigay diintiisi baa u qaadsiiyay inaga markay noo yimaadeen diintii gacanta ku hayay culimadeennii bay noogu haysay hore ama qaadariye ha noqdaan ama saalixiye ha noqdaan ama timooyin ha noqdaan anaga waxba noomay geysan jirin dadka may leyn jirin dhib badan qofkii wax siiyana way ka qaadan jireen inagu oran jiray waa dad beerka xaydhala way cunaanay war ciddii wax siisana way ka qaadan jireen xukunna cid kuma qabsan jirin xitaa wallaahi taariikh baan idin siinaya waqooyiga markii dagaaladu ka dhacay ee dowladdii kacaanka ahayd militarigeedii iyo SNU hayeen meesha la yiraahdo wadaamago ee halkaa caynaba iyo meeshaas qudbigu ku yaalo والله لبدا كوخود بينتي isugu yimaadaan ay labada kooxood anigu waan ku soo qeyray oo wanti oo taariikhdaas u wadha halka sheekh ari cadeey meeshaana ay ka sokaysan meesha magac bay ahayd qorona dhinacaas ay fadhiisiyeen qorona dhinaca intay kala badbaadiyeen maca dagaalka may qayb qaadan ma bay galinba niman dagaalkan iyo siyaas xitaa kuwa sunna wal jamaa al-shabaab ku liftay iyo qoliyaha wadaadada maalinta iltihaad arrinkooduna waa interest waxay doonayaan wadaniin maaha dalka ma hogaamin karayaan haddii hogaamiyaan balaayo ku soo jiideen xitaa gaaladan droniskana la daba taagay ee shacabka Soomaaliyeed maalin kastaba jubbada hoose iyo jubbada dhexe ku xasuuqaysan iyagana ugu wacan kulli wadaadooda soo raacay anu mana kala jir way war la hadalna kuma naan jarban la hadalna hargeysan kala hadalna burcan kala hadalna bariga Soomaaliland siisan jirnay kuwa waaweyn oo nimanka bartan magacooda ka sheegi jireen ayaan ku oran jiray ma xaqba inuu halkaan siyaasi soo istaago oo tusaalahan silaayo kala markaa adeerkiisaysan xaq miyay tahay inuu yiraahdo Soomaalidu waa cadowgay kooban am xarfuna wala dad qoreen ma dad ganacsi iska wata dantooda iska wata ay muuto dumarkana way khaldan mise qoranay alla ma niyahow waa iska caadi oo xaaladaas war diintu xaqu ma ha caadi dadku waa walaalo waa isku mid inama almu'minuna ikhwa fahtasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu roolkoodii iyo kaalintoodii anaga ma qaataan runaadan idin sheegay waa wada interest kuwa dawladda ku jira maalin waxay qoranayaan ilaahu baa imika qaar xukuumaddan nabadeena ku jira may xukuumaddan hadiiba ay xitaa Allah musta'an laga guuleystay hadhow dam jirid bay noqonayaan iyaga saaxiiba dukaano waa weyn iyo ganacsiyo waa weyn iyo balaayo baas bay furtaan qisaan dul istaagaya oo qoranayaan wuxuu waa la jiifiyana banaan la joojiyana banaan waxay qoranayaan laaluushka iyo hantida ummadda in la bixiya waxa xaraan maqdacay qoranayaan waxaanu soo taagnaa bal qisada yar dhageysta nin yiraahdo Abdicasiis Samaale waranu de ihsaankooda iyo rabishkooda ma qaanu saarixiyaan ummadda Soomaaliyeed ma dhageysto waxay ku hadlayaan waa ninka Hargeysa hotelka la yiraahdo Ambassador 1500 iskoorka isaga haysta 1500 oo qof buu wentay wadacsan hadda waa 1500 qof wasiirka maaliyadana waa markii wax masiilay meesha haystay ana qof waxa ku baxayay mana $10 iyo $15 adigu dhowr iyo $10,000 mar qura hada intaan cuntadiiba la gaaray oo tirka qolo ku bixiyay waxay ku soo dalisay qorneen mar hadaan anigu cunay oo anigu aan waxa cunay dadka u sinay reerkiisa ama sacad musamada baabo ka dhigay intii ugu badnayd waxay ku oranayaan mar hadaan anigu cunay oo aan dadkiisi waa qaab lagu xalaalsanayay moogto xalaal baa laga dhiganaya maxaa iga galay horta nimankaas walaalayaal waa nimanka noocaas waana isku waday wada haystaan waa saaxiibo anigu waan burco ku aqaanay wax ta garanaya marka horeba qadiyadoodu qadiyad adag oo diinta ka baxsan oo lagu soo habaaray oo burburkii Soomaaliya kadib aanu dhaxalnay oo balaayiyo baasabaha ninka al-shabaab igu soo hadal qaaday dhaahda maanta falka iyaga diinta oo ogolaatay oo kuma qofkani marka uu xitaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayru khalqullaahi dunida loo soo diray adal sharci baa ka yaal ahkaam baa ka taal sifa la marinaya sharciga islaamka la marinaya adigana uu ku dilay
ninka iyo gabadha u mushxaradaysay al-shabaab nimanka la yidhaahdaa gacanta 69aad baa laga soo diray dunida iyaga inagu soo hagay maraykan iyo balaayo baas waa dhulkeena iminka maanta soomaaliya dhul badan baa la haystaa haddaydaan ogeyn annaga idin sheegeen waxaa la haystaa airportkeenii balidogle maraykan baa haystaa wuxuu doonaabu ka rabtaa cid waruma hayso waxaa la haystaa meesha lala xarane walow ay xukuumadda horeba dan ujeed be walow xukuumaddan tii ka horreysay ay u saxiixday haddana dhulkeenii qayb ka mida baa la haystaa iyaga iyo gaaladu way wada shaqaystaan maalin waxay kodhan waan ka soo horjeednaa maalin way u tegayaan war nimankani waa aafane lagu soo habaaray dalka soomaaliya hore siyaasiyiinta oo quraaban ka hadli jiray waxaan ogaaday markaan dabagal badan sameeyey oo aan wax fara badan aan baaritaan fara badan sameeyey inay yihiin wax diinta ku soo gabada alla ilaah haddii laga tegi waayo ninka laha sheekh mustafa ismaaciil ninkaba qabyaaladu qaata waan arkaa isagoo ka hadlaya falsafadaha lagugu qabsan karo oo kale ama dalkaaga lagu qabsan karo dhulkaaga lagu dhexal wareejin karo arrimaha noocaasa iyagoo wadaniyadiyo dalkan idinkaa leh iyo ka hadlaya maarag may ka hadlaan sheekh aadan sunna imika ku xidhan hargeysa kan xitaa iminka maanta mar baa maxaarada iyo ormada noo soo hadal qaadanaya aadan siiro lidhaa adar midnimada soomaaliya ka hadla weli isagoo midnimada soomaaliya ka hadlaya maaragtay aadan siiro kama hadlayo hadduu qaynaa ku leeyahay oramayna qabsanaysaa oramaa sidana dee midnimada ka hadla oo midnimada iyo ummadda soomaaliyeed wanaageeda haddii aad tihiin culimo caadiya xitaa guurkii weeriyey wallahi inaan been meesha berigii hore culimadii hore ee waxay ka soo guursanayeen beled weyn kismaayo burco hargeysa dabnada ka hoos dhex galayeen dad wanaagsan bay ahayn saalixiyadu cidna dhibaatoomay geysan jirin saalixiyadeenni kulli shay yarjiciraasi halkeenii horeen ku noqonayna dowladnimona ma yaqaanaan qarannimo ma doonayaan wax allaale waxay doonayaan oo aan negative bay wada doonayaan dhallinyaray mid baan idin sheegaya idinkana taasuna waa mid siyaasiyiinta laftigooda khusaysa waayo siyaasiyiinta laftigoodu ideologigii wadaadadan bay maanta qayb qaateen waxay idinku odhanayaan niyow dalka inaa wax gashataan oo dalka waxamayaan waa kuwa dalkii joogaan idin sheegayaan waa beentood adar dalka soomaaliya la yidhaahdo maanta faransiiska aan ku noolahay 70 milyan ayuu quudiya 70 milyan dad gaadhaya marka maca faransi waxba la isku daro ayuu quudiya dowladdeena waxa ku damaha oo ku maqan in dowlad waxay ay lahayd oo dhan waana la aqoonsan yahay yaanu nagu odhanin waxa noocaas arrinkaasuna wuxuu u sabab ah sababteeda anaa idiin sheegaya waa ideology laydinku shubay macaaninka siyaasiga xaq baa loogu leeyahy inuu dadka shaqaalaysiiyo inuu ummadda mujtamaca dhallinyarada uu qorto al-shabaab waxaabay ka faaidaysanayaan tan waa tan xukuumadda ugu soo noqonayo war askariga aa $100 siinaysaan waa qalad adeer ninka baarlamaanka $3,000 qaadanaya iyo askariga $100 qaadanaya cadaalad maaha waana dulmi dalka ayaana meel kaga dhacaysa muuse yidhaahda markuu doono war dalka waxaan ma yaal waa qaybtan dhinacan dee hargeysa madaxweynaheena qaranka wuxuu dhaya madaxweyne farmaajo niyow mayahe dalka dadku ha maal gashadaan dalka sidee kelmadan bay had iyo jeer soo qaataan oo falsafadaha anagoo falsafada oo dhegaysana ninkan la yidhaahdo martin luther miyuu ahaa joseph kennedy maamahadan ingirishta odhanaysa don't ask your country wax noocaas dalkaagu yaanu adigu dalkaaga noqo inaad adigu wax u qaban kariso waa khalad dalkaaga sideeba muxuu qaban karaa dalkaagu waa inaad adiguna aad wax gashataa isaguna wax soo gelaya waa dalku income source buu leeyahy wax buu leeyahy wallahi haddii kale waxaa dhici doontaa ummadda iyo soomaaliya horta markay isfahmi doontaan dhallinyaradu ee macaa siyaasiga iyo wadaadka wixiina haysta aad fahmi doontaan waxa weeyaan marka aad ugu tagtaan waxay haystaan sidii faransiiska dhacday faransiiska markii ay boqoradii faransiisku dadka ay gaajoodeen waa kuwii qabsaday dadkii waxhaystay ee tii boqorada ahayd ee lahayd haddii ay roodhi waayeen meekeega ma cunaan dabeetna markaasay waxay guddoonsadeen dadka wax haystaa ilaa haddii kale waxooday ka qaadayaan inay dabeetna ay iyaguna ay wax siiyaan oo had iyo jeer sharcigan la yidhaahdo napoleon accord ayay ku qoran tahay diinta islaamka iyo diintan kaleba waa meelaha ay iska soo galaan koodhkaa u qoray waayo tusaale ahaan imka faransiiskan oo kale intiina aan ogeyna ama ognada horeba ogeynin qofku hadduu cuntada nool cuno gebigiisa intuu dukaan soo galo oo uu dabeedna cuntaa uu gaajoodo oo dukaanka dhexdiisa ama uu gaadha soo kastuu raashimo qaataba sharci qabanaya ma jiro hadday maxkamadda isla galaan waayo qofkan uu gaajoonaya baa la odhanaya waa sida diinta islaamkuna ay u dhigayso qofku hadduu gaajoodo maca dhaqankiina hore saas waan jiray
وبرجع ورحت جيل أو كلا وتلورين شري قف مركان وحبا هيسن هل بو صوك حسنة وني وقول لي سوع روتيس قف قاعد شون يبغى كور نيسان كلنا مدح رايو دلك وحبا ما يعلانو دلك ودتت كنا ايديولوجي دا ساب كشوتن waa been xitaa Joseph Kennedy anika fikrada oranayo hay isweydiin dalkaaga muxuu ku qaban karaa ee adigu isweydiin dalkaaga waxaad u qaban karaysid ma waan dalkaaga adigana wax soo galiya ومنها تاهدان وأنا اللي رضى شغال سيسان وإنا يجنا وسيسان علماء ده بوين كوا علماء ده إسكال جيب وسيسان يبين على ياشا يجنا عسكا طلبات ما يجا وش غيسان عشور كم ويديان بلاك ركما قادان يجا إنك وحي لورين سري بانك أردن يجا هيس ده شلوا بانك هب بانك بكو شغينيا سيدا كله أنا الله مستعان كون كله أملك إسبرس هو بانك كله communication كي دالك يجا هيستا ووح على وحي دالك communication بلا أنهي دولة ده يجا هيستا دولة يجا كبغان إسا فانكران إسا حتى بس شعب وين كم حاجة فرن ولكن بس أسا وقع شون إسا كود دالك يشوفوا لبعضنا أسا سيبوش ريسان إلا أجرتان وحنا ليدهم بل مركا أجرتان تبتي فرانسيسكو أي مظاهراتين أي بوبين بدت كي وحيستي marka sayidin soo jeesanaya ilaa ma garanaysan waxa ay dhawr jumba la ku shubay war dalka waxa ma yaalo dalka qarashmay aan leeyahay shamaashka ugu weyn qof hadaan la wada siin miyay qaybsanays been baa la ku shubay waliin ku wax noocaas taas waa qodob oo aan uga digayo dhalinyarada Soomaaliyeed aan leeyahay arrinkan leedin ku leeyahay dalkaaga waxba kuma qaban karo waa been wasiirka maaliyadda waxa leeyahay mudane wasiir anigu taa lagu eedeynayo way khalday waayo taasu mid dalka anfacaysa maaha وأرنما قار وأنما كبرنامج كشوجي كبر يقولوا قيبي كي كوا ضدك يدلك وحو ذا بابا يبي قيبي لكن ده يرضى شغالة أنت غير مقدشة تقولي هذا يكوا قبل ذا كين هذا ربطت كيلو شغالة سنها أدوك بحرين وأنا أدوك أمي المرسى مركا حكومتهن الدلك تمادين دلك معها إن كح يدوك هنا أتقعن توجلسان شقيسان يسأو توجا oo aan ognahay oo kuwa ku daba arooraya oo بريكا maalin marka meesha ka baxdaan argagixis noqonaya oo dhiil maxaan cunaa gabigood waa qadiyad kale ma taa anaga igu soo wariya qofku haduu hadlo waxa lagu didsanaya oo lagu eeriyanaya dhaqaale uu doonaya laalush buu doonaya lacag baa la siin war lacagta meeqa bixiya lacagtan baasay oo dadka ku dawaqiyeen iyaga ayaa fikradoodu ay tahay lacag la qaato wax la lunsado wax la dubiyo argagixisana waa argagixiso كم معاينك أفضلي كم ما أنت وضعتان أنا وين وضعتان كودن باي ماي وما ورانا يدينك وضع سوري واي مرحبا بينا لكن يدينك هذا حكومتهن ضدك يدينك يكون سور دحداي وحي أحد إن هذه ودون إنه أمته جامية إنه محكمة صامرة إن محكمة صامرة إنه أمته جامية كرا ضدك يكون سور دحداي تبنا نحوار كده دل بايو يأكله waxaan noqonayaa anoo sharafta dadka soo laayay ayaa qaarka goormeenu ka gudbayna hebel baa dambiilaha hebel kale dambiiloha anna dambiila kala noqonaya waxaan adeer maalin baa wax la saxaa ninka maanta hadaan umada laga qaban isagana argixisada oo aanu cadaynin mashruucani meeshu ka yimi cidii ka dambeysay cidii wadatay wixii looga jeeday umada aanu soo bandhigin ilaa way isfahansan adeer بريكا maalina baydhaba sheegaysaane dalka xitaa qaybaha kale ayuu saameyn ku yeelanaya oo mid argagixis soo kala oo dalkan waa la wareejinaya baan anu qabaa marka dalkan la idinka wareejiyay baa toos doontaan ayuu keensanaya ka taageerayo qabyaalad baad ku taageeraysa way qabyaalada laftigeeda baa wax xuna oo la qoranayaa hebel baniyo hebel ku jiqsi ana arkay deemka kuwa qabyaalaystayaasha madaxa lagu wadistay meelaha listo anaga maxaan lagu haystaa qabyaalada aayad idin ku noqotay oo dad badan aayad ku noqotay oo hadda reerkaaga haddaan maanta u orolayo waxaan ogahay والله هتان مصبيحية سينائية شجعان توري أما قوة شجعان تدين تصارحان حاجة كنا سوقا ذياب ملا عسومدا اللي جينيا هو مثلا وهيرو وهو حنا كنا نروح نوابين وروح حنا دال كمبانا لقيا قادنيا ودول كي نورن بالو قادنيا وصومالي ما كان مارمس وتدكون يسوي مدام بقرب بدن ها بروح الموجة وسكان هذا تما هذا يا حقيقة سوي ما دونتان بين بس شيء كان وهو حنا نورن باود سيرو يبه بين بيلود شغل تاسولا ليال وقضبك عليه هاي ولا يرقف كذا لو أقرأ مرة لبعد بالمسؤول عليه نيك لو أقرأ كرو إنه يسقط عسكري نقضي أو تجعل كراي ومدحوينا نقول كرو وتذكره جامين كرا وانك قرن سكوت دفاعي وقرن كيس دفاعي وتلكيس دفاعي سمريك نقول أما تجعل تلكيس تاريخ سوي
galay laakiin in shalay dadkiiba leynayay ayaad maantana hor wadaano leedin musharax ma noqonaya qaar baa u tanaasulay qaar kale waxana waa meel baayo yaa kule meel halisa baa lagu wadaa taas walaal waa taa waxaan kale oo iyadana aan dul istaagaya allahu mustacaan dalka la yidhaahdo horta anu carab dee waa carab inaguna soomaaliya la yidhahda dunidu xidhiidh way samaysan kartaa laakiin ma aha waa waxaa nimankan ku haysta xitaa dalna dalkaaga kulama laha maamulkiisana xaq uma laha inaad isu dhiibtid dal oo isu wada dhiibtidna waa khalad dunida taasoo kale kama dhacdo dunidu xidhiidhay leedahay xidhadaas waa mutual relationship waa xidhiidhay isu dhammaystiran ama mutual agreement wax dhahda bay galaan xagga ganacsigay ka galaan xagga isgaadhsiintay ka galaan xagga allahu mustacaan transportationkii socodkay ka galaan xagga communicationkay ka galaan xagga nabadgelyada oo number one bay ka galaan udhahaan dalalkaasu aynu nabadgelyadeena iyo amnigeena guud aynu wada ilaashano laakiin dalna dal isuma wada dhiibo oo dalkaasu dalkaa ma wada qaato okay maanta maxaa ugu dambeeyey dowladda qatar waa kuwii ay nimankan isbahaystay sacuudiga iyo imaaraadka lagu sheega waa kuwii cunaqabataynta iyo wax saaray maanta waxay ogolaadeen markii iyadana maalintii dhowto ilaan xaqu feedhuhu ka dilaacay ay ku dileen safaaradoodii turkiga ku taalay ay ku dileen kii waryaha waxyaabaha ay dhaafsadeen dowladda turkiga ee ay maanta ku khasbaysay on the table-ka miiska saaran waxaa ka mid ah inuu sacuudiga cunaqabataynta ka qaado dalka qatar waanu ka qaadaya maalmaha soo socda waxaa arki doontaan sacuudiga iyo qatar oo cilaaqaadkoodii soo ceshaday xaalad baana timi qatar laftigeedu way sadkaysay oo waxa alaala wixii isbahaystay ee isu bahaystay daadar meel bay kusoo dajeesteen oo go-aankeedii bay ku adkaysatay taasuna waxa weeyaan qodob kale barnaamijka ku jirana waxa weeyaan isagana shacabka imaaraadka shacabka waxaan leeyahay yaman shacabka yaman oo ka mudaharaaday oo mudaharaad ballaaran ilaa maanta uu ka socday dhulkooda oo ay kaga soo horjeedaan isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka innaga dadkeeni maxaa helay dadkeeni sukuun qabiilad ku mashquulsan qaar baa imka badan baa al-shabaab taageerayba oo laxaalata arkiiba oo dhulkeena innaga yaa kusoo duunaya maanta yaa ina damacsan waa imaaraad waa sacuudi waa ninkan yaree dhegta abiye oo isaguna meelaha been ka shuba oo ummad dadkiisa ku qaboojiya gudaha dhibaatooyinka ka socda damaciina aanu weli ka dhammaan oo marba kusoo celiya soomaaliya ayaan badaheeda iyo war badaheena inagaa leh dadka uu dalkiinan ilaashada waayo dalkiinan waa dhibaatooyin fara badan ayaa ku socda diintii baana laga soo weeraray oo diinteenii nimankan wadaadada baa dadkii diintii nacsiinayo intay diintii nagaba saareen caawa mar baan arkay oo saaxiibkii ka hadlayay ninka la yidhaahdo rusheey oo kale burcuy tashuush bay ku fureen ummaddaa ilaahay ama ilan dadku iyagaa ogolaaye ama ha daweeyo ama yaanu daweynin berberuu tegay tashuush bay ku fureen waa koox isla wada socotay iyagii mowta way is ogyihin waa ganacsiyaal xajajkay dadka u dhoofiyaan diyaarada iyo balaayo baas bay leeyihiin ganacsiyo oo weyn bay samaysteen war nimankan anigu ma aqaan ba wadaadaba waa ganacsiyaal aniga wallaahi xogtooda oo dhan haya kuwa hargeysa jooga kuwa burca jooga masaajidka agtiisa meherada ka furanayaanba halkaas ku banaan haa masaajidka waan ka samaysanaya daabshil baa beri wuxuu i war masaajidka iskuulka sheekh ibraahim baan dhisayaaba dabeedna iskuulkii baa ardayda loo dhisay masaajid bay soo hosgeliyeen xawaadi daabshil bay koo sameeyeen midowdaadaba kaba samaystayba bal haggee ganacsigan laga bilaabo markaa waa wada noocaaba gebigooduba macaka muqdisho jooga indhahoodaasu wadaniyaddu waxay noogu dambeysay ummadii hay soomaaliya kuwii beriga hore is haysteen ma garanaysaa kuwa iyagu xilal iyo legitman iyo tusaale ahaan iminka markaan arrin qaar baa ka xanaaqi doonaba ama ka xanaaqa ama ha ka xanaaqina iminka tusaale ahaan hadraawi oo kale snm iyo wuu ka horreeyey wixii la odhan jiray ssdf iyo maxamed saa barre waxay isku haysteen legitman maxaa sharciyan wuxuu lahaa war dalkan waad inqilaabtee dee sharciyan waxay isku haystaan wax la garan karayo oo sharciyan oo duni iskuma haystaan kana isna duni ma haysta isna wuxuu leeyahay kursigaygan iyo xukunkayga marka kuwa hore berigaa hore ee la garan karaya waxay isku haysteen idhaa war ama kursigan iga dig iyo kursigan dhaaf iyo kuwana waxay isku haystaan ganacsi xitaa iyagaa u fudaydiya in badaha liibiyo in dekedaha liibiyo in carabta iyo imaaraadkan iyo sacuudigan iyo balaadan anaga noo keenay war wadaad oo dhan siyaasadda laga ilaaliyo ama tala laga qaadanayo kooxda ku jirtaana waa tuuqaayimiin akbaraba waayo diinta caadu ma yaqaanaan diintii waxay ka dhigteen meel ay kusoo gabadaan waxay kasoo dhigteenba foodsaaro ayaa diinta lagaga dhiganaya dabna waa laguud ma kala saarayo damul jadiid al-shabaab xisbul islaam
al-itixaad qaar kaloo la yidhaahdo kuwo kaloo maca salafiyada ku dar qaar kaloo salafiye la yidhahdo burco jooga waayo walaal caadiba maahaba salafiyada iyo iminka qaar la odhan jiraan beri burco ugu tegey ilaahay bayaaba ku keenaya salaad duhur baa lagu eedaamaya adigu iska caadi baad masaajidka caqaadaad ku tukanaysa kabaarsigaad ku tukanaysa waxaad ku tukanaysaa kan xaarwado ku yaali masaajidka reer daarka xaggaasaad iskaga tukanaysaa dadka hadda magaca u bixiyey ee halkaa ku yaali iyagu ka dhuf qamiis yaroo gacan baasta koodii ku tukanaya war masaajidka yaa qoray yaa idiin qoray inaa kaa ku tukataan masaa qofka timooyintaa xitaa ee ilaahay dee masaajidku waa baytullaahi baa soo galayo waa la wadaa hay warkan waana inoo soo galay war qofka meel masaajidka lahayn marka dadkaas waa fayras kale dagaalka iyagu iminka uu socon doona insha allahu tacaala waa fayras dowladahana iyaga ayaa dabra waa dowlado kale oo munaafiqiina gaalada markay doonaan la shaqaystaan miyaanu kii sheekh shariif la odhan jiray marka dambe seen u lahayn waa wadaado sokii maraykan isu dhiibay sokii gebigiisuba etoobiyaan noqday war nimankan haddaba walaalayaal dhammaantood kuwii aynu iska qaban karaynay ka halis badan waa nin dhaqaale sita oo diintii kugu gabanaya oo maalin al-shabaaba oo maalin kale damul jadiida oo maalin kale fayras kala oo maalin maxaa la yidhahdaa alxisaan dama diintaa ku ekaada sida berigii hore culamadii hore oo masaajidada iyo kitaabta iyo dadka hadday xitaa ilbaxnimo kula iman lahaayeen oo dadka xitaa diinta ku odhan lahayn lin diintaa dhigayseen war dadka u dhulkiina ilaashada waayo kitaabka iyo diintu waxay dhigaysaa dhulkaaga inaad ilaashatid sayid maxamed cabdilla xasan basoo nin wadaada ma ahayn maxaa ku kalifayey xaaladii ku kalifayay waxay wixii lagu soo weeraray wallaahi ilaa imikadaa ummadda ee soomaali wadani kale uma jirin baa soconaysa ilaa hadda 100 sanood baa kasoo horteysay halkuu isagu wax ka arkay ilaa imika ka arki maaya qaar baan ilaa imikadaa ka arkin qaar imikadaa nool imikadaa dunidu hadda ay GPS ka kala samaysatay ee dal kastaaba xuduudkiisa garanayo ee communication kala garanayo ee interest la iska raba la garanayo qaar baan faahfaahsan warta dalkan adigu meelada dadkan ujeedka waa maxay oromadan iyo ujeedkoodana waa maxay oromadan kugu soo qulqulaysa iyo arrimahan ay wadataa waa maxay imaaraadkan iyo ujeedadiisu waa maxay ilaan waa imaaraadku deked buu leeyahay uu dekada kugu casriyanaya dekadahaagan uu doonayaa inuu qabsado oo dabatana uu isaga iyo dal kale oo Itoobiya la hada wada yeeshaan adiguna aad u noqotidba waa lagu leeyahay taas uu diidanaa oo ka dagaalamay diintuna waa gosh inaad dhulkaaga ku dagaalantid inaad dhulkaaga ilaashatid adar waa loo ogolay laakiin bal ii soo sheega anigu ma aragtay weligiina waan dhageysanay habeen kastana mar kastana waan dhageysanaa wuxuu waxa weeyaan waa intaan isla wada garanay laakiin kama hadlaan wanaaga isu soo dhaweynta midnimada wixii xitaa al-shabaab marmar iyo dhif iyagoo far ku gabanaya far bay ku gabanaya xitaa Itoobiya dhulka meel leed kama hadlayaan waxa qoran Itoobiya naqsan war ha baqina haddii kalena diinta dadka uga horbeera anagu idinkaba wallaahi koona kasta ummadda Soomaaliyeed dagaal baan ka socda xagga diintuuna ka socda oo dalkiiba ku socda oo qalbiyadiina ku socda oo qabiilka baan ka socda oo dadkii ummadii Soomaaliyeed waxa lagu kala mashquuliyay qolo horta qabyaalada kow waxa uu aabaa dhibta ugu badan waa qabyaalada qofkani qabyaalad buu iskaga diidayaa qabyaalad buu wax ku dooranayaa dambiilo oo idilba hadduu doono mid ka dilay 40,000 oo qof 30,000 oo qof ay qabyaalad ku daba socdaan ku dooranayaan masala adigoo daacad war wanaaga la oranaya no qabiilkayga ma waxay ka raacayaan mid 30,000 ka dilay si qoraan war heerkaygi isku qabiil baan kaasaan wadanayna okay taas horta waa mid koowaad waxaynu ka dhimanay xaqii Allahu musta'an culimadii waayo culimada walaal kaalintoodii iyo roolkoodii wuu maqan waxaynu ka dhimanay oo kale siyaasigii oo isaguna aan ku dhac lahayn ku dhac ka maqan ku dhaci ummadiisa ku kicin lahaa iyo dugmadii uu dadkiisa u yeelan lahaa ilaan dalalka kale waxba inaga maqan waxaa arkaysaa imka siyaasiyiinta inta badan ku mashquulsan yahay siyaasadda waxa diidaya waa maxay inaad dalkay cududi taala dhalinyaradan maanta al-shabaab ay wadato ee al-shabaab daba ordaya haddii lacag ku filan la siin lahaa oo daacad loo noqon lahaa oo amisontan habaarka qabtay dushana laga keenaan waxba inoo qaban iyaga lagu bedelan lahaa wallaahi dalku hagaagi lahaa horumarna waynu gaari lahayn kuwa dalka jooga in daacad loo noqo laakiin daacadii meeda daacadii waxaa laga jecel yahay qolyahan ayaa laga jecel yahay allahu mustacaan beenbeenta intay salaada qura tukadeen dashanta salaadood qura tukanayaan oo halkaas ku soo fadhiistay beenta sheegay ee aan wadaniyad iyo dadnimo iyo dad aqoon iyo waxbaba toona aan lahayn intaas laga jecel inta haddaad siyaasi u soo noqonaysaan
anu madaxda waxaanu leenahay halkaa madaxda waa loo duceeya war waanu idiin ducaynayna idinma habaarayna laakiin hoostiina kuwan ku jira iyo kuwan dadka qarxinaya iyagaa siiqan xitaa kuwa idin soocaya wallahi xukuumaddan maanta nabad iyo nolol xaqiiqadu waxa weeyaan kuwan idin soocaya fareetag sacdo ee bulshada dhagxumada kusoo dhex tuuraya iyo wallaahi qaar xafiisyadiina jooga waa saaxiib annagaa og waxba idaan naga dhegaysanaya weligiina saasaan idin sheegay oo ah gebigoodaba ku shaqeeya iyaguna lacag bay qaadanaya waxay luursanayaan garamaysa kana laaluushii ha laysoo ammaan magac baan raadinaya ammaanta maxaa ka qaalisan war waxaa ka qaalisan dalkaaga jeclow dalkan ma leeday maxaan waadada ku haysana waadada unka waxay ka seexdeen waxaa ka mid ah dalkaba inay leeyihiin dalka waxay haystaan inuu sacuudi iyo qatar iyo imaaraad iyo meelaha lacagta looga soo diray inay leedahay adeer anagu haddaba qof ma jeclin dalka ayaanu jecelnay dalkeeguna waa soomaaliya waanan ka hadlaynaa inta nafi nagu jirto o dhan waayo waanu arkaynaa culays badan oo naga awood badan ayaa maanta dalkayga ka socda dhinac culimadii baa noqotay badankooda in yar mooyaane midh iyo dhif mooyaane wallaahi macaamidharka haddaad hoos ugu sii daadegtaan nin kastaaba ganacsi buu noqon dana ninku hadduu ganacsi noqdana diinta iyo ganacsigu isma dhex karaan wuu hamranayaa interes buu eeganayaa waa nin macaashdoona oo laba ugee ku jira adeer culimadu kumay tiri jiran laba ugee culimada iyaga qudhooda dee adeer culimadan kale ee dunidan kale ama masar oo kale ha noqoto ama sacuudiga oo kale ha noqoto dowladaha ayaa wax siiya oo ka kaaba kharashaadkooda gurigooda gaadhigooda iyaga laftigooda haddii dowladu timaado taasaa uga sharaf badnaan lahay laakiin maba doonayaanba waa iyaga sidan ugu badisaa iyaga qudhoodu waxay qayb ka yihiin dadkaan dowladnimadaba doonaynba dowladnimadu adeer kuwan macaamilka halkan faransiiskan aan ku noolahay dee makaniisadaha iyo biishoobyada iyo bristol dowladaha ka warhaya waayo wasaaradda diinta iyo awqaafteeda bay hoos tagaan halkaasaa la hoosgeeya halka innagaba maanta odayaashan beenaalayaasha ayaa salaadiinta iyo qaar iska dhigaan walow aniguanan odayaasha qaar badan aanan maasha allah aanan ku fogaanan waayo salaadiintu way ka dhowdahay had iyo jeer siyaasi un hayra dhex galaan laakiin weli way dhow yihin golaha dhaqanku way dhow yihin run marka laga hadlay waa kuwa nimankaba meesha lahaa jijigay ku jiray ilaana wax kasta been ka samayna maaha kuwii hargeysa joogay waan ku hambalyaynaya gaar ahaan qolyihii garxayska iyo hawbadada dhulbaantaha iyo allahu mustacaan oo dhaqankaaba fiicanba waa ninka dhaa war golahan dhaqanka xukuumaday niyo kuwaa maalgeliya oo kuwa waxaa ka dhigtan allahu mustacaan golo u sameeya sida aqalka saroo kala oo kuwaasaa ummadda malaa maanta dhaqdhaqaaq isu keeni karayo xitaa oo dadku ilan dib u heshiisiin baa loo baahan yahay kuwa barasharka saara walaalayaal barnaamijkeenu maasha allah caawa horta intaasuu ku koobnaa waxaan aan idiin sheegi doonaa aan kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo qolyihiina khalad fahansanow idinkuna ha ku degdegina annaguna ku degdegi mayno ninkaa ku dhintay meesha la yidhaahdo ay weerarka lagu dilay isagii carruurtiisa gaalkacayo waradeer culimadu iyo dadkii diinta ka faalloonayay allaha xeeldheerayaasha diinta islaamka waxay yidhaahdeen aynu ku dhaqanno qof in la iska dilo oo lasoo cararo waa khalad waayo qofkan waa in shareecada la mariyaa waa in la mariyaa axkaamta waa inuu qaadi xukumaa waa in lagu soo caddeeyaa waa in markhaatiyada yimaadaan waa procedure noocaas diintu maaha la jiifiyaana bannaan la joojiyana bannaan qolyahan kale ee argixisada ee al-shabaab adeer moraalka ha u dhisina ummadahee soomaaliya markaa tahdaan maanta waxaan arkayaa dad badan oo la riyaaqsan oo ku faraxsan maya waxaanay sameyn waaba idinku awoodeysanayaan waayo waxay doonayaan falsafad bay wataan nimankani inay ka dambeeyeen xitaa in kale war lama laakiin way sheegtaan oo idaacadahooda way ku sheeganayaan falsafadaas maxay odhanaysaa inay isugu keen soo ekaysiiyaan inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah nuurkii dunida loo soo diray inay nagu khiyaamayaan wadhaa nebigii baan difaacaynaa war nebiga waa difaaci kartaa waa run nebiga qofka wax ka sheegaa waa dil laakiin system iyo nidaam baa la shuruuc bay diintu leedahay iyo axkaamtii intaad ka soo boodaan su-aasha kale meesha imanaysa inay axkaamtii intay ka soo boodaan yaanay idinku khaldin su-aal kale meesha imanaysa dadkan ay maalin kastaba laayaan ma nebi maxamed wax ka sheegay wadinka arkaya hooyooyin ummadii hay soomaali niyow ha noqonina adhi qulux kama ilmaxo maalin xaggaasaa laydin soo jeedinaya maalin xaggaasaa laydin soo jeedinaya war markii hooyadii halkaa carruurteeda shaaha yar ku karinaysay muqdisho qaraxii soobeyo kale ee ay halkaa labadii carruur ahaa hooyadood kartoon kusoo qaadeen hooyadood ma nebi maxamed wax ka sheegtay ciyaalka yaree masaakiinta way u shaqaynaysa ee halkaa dacalbasarkaa ee darxumadu hayso ee dowlad la-aantu hayso
ee dhibtu haysato ayay bacadka u fadhiyo imise qof oo miskiina bay dileen ilaah baan ku dhaarshay imise arday bay dileen oo ubaxii dalkan usoo bixi lahaa oo lagu soo tabcay oo waalidkood kusoo tabcay oo la berber istaagay ayay dileen waa khata ha ku dhicina kii ku dhacayona adiga iyo iyagu isku mid baati kuwa u shaqeeya baati adeer argagixisadu fal kasta oo ay ku dhaqaaqdaan waa khalad waayo dalka iyagu ma xukumaan dalkana ma doonayaan dowladnimona ma rabaan wadaniyiinna maba ahaba oo shaqo kuma laha dalkeenana hagaardaamay ku hayaan iyo dhibaatay nagu hayaan oo inoo soo jiidaan taas weeyaan waa taan caawa aan ka hadlayo dhuqolyaha dhalinyarada soomaaliyeedna walaalayaal waxaan leeyahay waan mar kasta uga digaya iyagana in aydu maasha allah dalkiina aydaan ilaawin oo dalkiina uu mas-uuliyad idinka saaran tahay hana dhegaysanina afkaaraha iyaguna la mida taa argagixisada lagu odhanayo allahu mustacaan dalkaaga waxaan de John Kennedy meelaha kusoo qoray ee uu yihi ha weydiisanin dalkaaga maxaa la yidhahdaa maxaad u tari kartaa adigu waxaad wax noocaas ee adigu ku feker waxaad u qaban karayso war dalkaaga wuxuu ku tari karaa dalkaaga khayraadkiisa iyo waxa ka soconaya xaq baad u leedahay inaad qaybtaada aad ka heshid oo lagaa quudiyo oo wax lagaa siiyo xaq ayaad u leedahay yaana lagu odhanina waa falsafad khaldanay dalka waxba ma yaalaan wixii yaalla baa la wada leeyahay dalkeenu waa dal maanta leecda dowladdana waa la aqoonsan yahay walow yaanay dalka oo dhan gacanta ku wada hayn laakiin haddana waxay helayso dee shacabka u shaqaynaysa waa inay shacabka gaar ahaan dhalinyarada war dhalinyarada soomaaliyeed xitaa askar waa u diyaar oo kumanaan baanu ognahay oo anigu walaahi xoogaal ah oo ilaahay googi oo intay qaar gobollo fog ka yimaadeen iyo qaar muqdishoba jooga oo ka hor warbixintana ay soo saarayeen nimankan maalinta dhaweyto anigu fake baan u arkaay ama waxaan u arkaa un interest conflict of interest sida wasiirka dhigta biilaba sheegay wax interest isku haystaan wasaaradda aan anigu niyadda ku hayay baa waxay ahayd oo marka hore baan ka fikrayay niyo soo nimanka shaqada doonaya ee muqdisho jooga ee dhalinyarada ah ee wax soo bartay ee shaqada buuxin kara marka wasaaradaha la geeyo dee waa inay budgetka usoo baas karaysaa wasaaradda maaliyaddu ilan qofku markuu shaqaale noqdo waa in mushahar buu yeelanaya xaq buu yeelanaya taas baa ma lahaa aad mar halkaa ra-iisul wasaare aad u marisid wasiirka ministerka taadi mudana wasiir waad dadaalaysaa shaqo fiican baad wadaa laakiinse ugu dhaqso dhalinyaraa jirta xitaa walahi qaar baan ogay kirooyinkoodu ku adag yahay iyo asxaab ay dul joogaan oo markii horena loo sheegay shaqooyin oo soo abalay gareeyay oo ilaa iminka aan la qaadan taasaa u baahan in wax laga qabto weliba dhalinyarada awoodda la saaro laakiin nin isagu $3,000 qaato oo dhaqaale doonaya oo lahaa contract lay sameey beenaalaad adiguna tuuga baa tahay oo kuwa dalku ka degi waaya baa tahay kumana dhegaysanin tan kale la yidhaahdo mukhtaar roobowne walaalayaal keliya wuxuun baa isweydiisaa intaanu horta madaxweyne maydna noqon mashruucan yaa watay aniga su-aasha mar kasta mukhtaar roob adeer waa dushaasaa uga saaraya question mark mashruucan xaw ka yimi mashruucan halkuu ka yimi iyo ciddii wadatay noo soo caddeen mashruucaad ku dagaalamaysa ilaan dhaqaalaad qaadanaysa ilaan dad dhan baad wadatay ilaan hub baad wadatay ciidan baad wadatay finance waxaa lagugu sameynayay kharashaad baad wadato qof aan kharash ba haysan annagoo balaa kharash amaan waddankii tagno oon dagaal samayno dagaalka markaad doonaysa inaad geshid lacag baa ka horeysa inaad ciidankii heshid baa ka horeysa saanad iyo ciidan baa waxaan yaa watay xaggay ka imanaysa dadka noo caddee annagu maalin kastaba nin qufulan oo la yidhaahdo argagixisoo ka soo baxay maantana dalkuu hogaaminaya oo dalka iska hogaamiyo daadar wax la qaadan kara maaha sodobii sanadka mashruuca watay ee dhaqaalaha lagugu siinayay ee lacagta lagugu siinayay ee wax kastaba lagugu siinayay hadar lama aqbali karo adeer diinta kor uga baxo ku xustaa bahalka weynaa haddana waa argagixisa kara lama aqbali karo ummad system iyo sharci ay dhigatayna meel buu kaga dhacay wuxuu kaga dhacay ummadda Soomaali dhaqankoodii diintoodii ayuu meel kaga dhacay waxaanu ahaa maleeshiya burcad buu ahaa nin burcad inuu dhaahdo uu hanqaltaago dadka ayaan maantana hogaaminayaa waa nasiib darro waa dulmi al-shabaab daacish kuwan kale la yidhaahdo waxaan boko xaaraam wuxuba waa mashruuciyo ay duni kaa wadato hasoo agar haddii lagu cafiyey iska fadhiiso oo dadkaaga qayb ka noqo intaasaan anagu leenahay intaas ayaan ku haystaa ninka la yidhaahdo waan wada salaamayaa walaal gulyo gobonimo mana aqbalayso qolyaha u doodayna waxaan leeyahay adeerayal ha isku khaldina oo sharciyada caalamka soo barta maraykan hadday jirto adeer waxa lagu doortaa oo madaxweynayaashooda lahayd military service bay soo mareen
laakiin dalkooda difaacay dalkooda ayay difaacay kanima dalku difaacay ma Soomaaliya difaacay waxa ku soo hagayay droniskan iyo Mareykan iyo balaayo baas dadka laaya masaakiin ku soo hagayay waa mowduuc khaldan aad iyo aad baan walaal ummadda Soomaaliyeed guul iyo gobonimo qoliyahan wadaadadana waxaan leeyahay niyo dhinac isugu beedha siyaasadda ama siyaasadda ka baxo dadka waxa aad u soo jeedisaan midnimada u soo jeediya iyo wanaag u soo jeediya guul iyo gobonimo ma sha Allah aad iyo aad baan idin salaamayaa haddii asxaabta waanu salaamaya walaal guul iyo gobonimo dalkuna ilaashada dalkeenana aynu ilaashano madaxdana loo duceeyo anu intaasaan markastaba ummadda Soomaaliyeed idinkaga tagaya nimanka kooxaha wadaadadana waxaan leeyahay la jiifiyana banaan la idinka yeelimayo la joojiyana banaan anagu saalixiyadii hore ayaanu barbar taaganahay waanu ka nabadgeli jirnay markay yidhaahdaan roob doonta quraanka akhriya dad iska daacada baan roobku markii uu noo dii jiray alla baryay noo sameyn jireen argixisana naguma noqon jirin dhib kalena noo meegeysan jirin adeer waxna nagama dhici jirin kuwana maalin dadka ay leenayaan maalin ganacsiga kala wareegay xataa dadka wax siin jireen inflation iyo sixir barnaan naguma sameyn jirin kuwayga hore ayaan anagu nationalism kana ma yaqaanaan kuwan dambe qarannimada iyo dalkooda adeer ma taqaanaan diinta dadka yaqaano waa la garanaya ninku markuu diinta yaqaano waa inuu wanaaga isu keenka ummadda qayb bay ka tahay dadka Soomaalida la isnacsiinayo ee qaybta laga dhigay ee lagu yiri waad kala go'aysaan iyo xaqan kala kala joogtaan in la isu keeno ayaa wanaagsan hatta geerna waligeena ilaahay ummadda Soomaaliyeed al-shabaab iyo ficiladeed hatta qarankeena aan faa'iido ka rabno hatta geerna dawladdeena taageeradeed baan salaamaya guul iyo gobonimo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh